geeska Afrika waxa uu ku yaalaa qaybta bari ee qaaradda Afrika waa gabaldaye gelin badhan u jeeda waa gamas iyo colaad waa dhiig iyo dib geeska Afrika waxa uu ku dhex yaalaa muuqaal juqraafiyeed cajiib ah xeebta badweynta Hindiya biyaha badda cas gacanka cadal saaxil iyo safaana geeska Afrika waxa uu ka kooban yahay 4 dal Soomaaliya Djibouti Eritrea iyo Ethiopia iyo hal gobol oo ilaa qarni wax ka badan u geylamayay inuu helo madax bannaani kaasoo ah gobolka Ogaadeniya oo ku hoos jira dalka Ethiopia waxa geeska ku nool dad tiradoodu dhan tahay 145 milyan geeska Afrika 80% waa dhul siman marka laga reebo buuraha joogoodu sareeyo ee ka dhashay saameynta dooxada weyn ee Rift Valley ee ku yaala dalka Ethiopia jeexan iyo kala baahid dhulka ah oo ka soo bilaabmay Turkiga socdana ilaa Mozambique oo calaamada kala go ee tectoniga ee African Plate iyo Somali Plate geology ahaan geeska Afrika iyo Yemen waxay ahaayeen hal dhul oo ku wada yaala hal qaarad waa 18 milyan oo sano ka hor inta aan gacadka cadmeed kala dilaacin oo kala saarin geeska Afrika iyo jasiiradda Carabta Socotra waa jasiirad yar oo ku yaala badweynta Hindiya ee xeebaha Soomaaliya cabirkoodu waa 3600 kiiloomitir oo isku weeran waa dhul ku yaal kana tirsan Yemen Soomaaliduna horey u lahaan jirtay dhulka hoose ee geeska guud ahaan waa oomane inkastoo ay u dhow yihiin dhul baraha muuqaalkani waxaynu si faahfaahsan uga hadlaynaa saddexda qaybood ee ugu muhiimsan geeska Afrika buuraha Ethiopia xeebta badda cas ee Eritrea Djibouti iyo dhulka Soomaalida ee ku wareegsan geeska Afrika ee fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe sar haddii aad nala socotayna like iyo share bay isugu dar si uu u gaaro saaxiibo badan bogga Facebook-gana follow sar saaxiibo badanna sii gaarsii buuraha Ethiopia waxay ka mid yihiin meelaha ugu jooga sareeya guud ahaan qaaradda Afrika volkaanooyin ayaa joogta uga qarxa waana natiijo ka dhalatay isbedelada tectoniga ee ka dhacaya Afrikada bari isbedelada tectoniga ayaa ugu dambeyn sababi doona in dhulweynaha Afrika uu kala qaybsamo laba qaybood Nubian Plate iyo Somalian Plate labada tectonic oo si kala faaxaya 6 mm sanadkiiba kala fogaantaasi oo ay sababtay xoogga isbedelada ee ka socda dhulka hoostiisa waxa kale oo arrinkaasi sababtay in buuraha Ethiopia ay kor u kacaan buuraha Ethiopia meelo badan ayaa helay in ka badan 2,000 mm sanadkiiba Asmara caasimadda waxay u tahay dalka Eritrea waxay heshaa celcelis dhan 570 mm roobka sanadkaba roobkan ayaa ah isha kaliya ee asal ahaan ay ka yimaadaan biyaha laga helo dalal badan oo ka baxsan Ethiopia oo ay ku jiraan Suudaan Masar Ethiopia Eritrea Uganda iyo qaybo badan oo kale cimilada Ethiopia aad bay u kala duwan tahay gobolada iyo kilaalada loo qaybiyo dalkaasi la isku dhaadhaaday Addis Ababa heerkulka ugu badan waa 26 degree centigrade heerkulka ugu yarna waa 4 degree centigrade lama degaanka Danakil waa dhul ku fidsan 100,000 kiiloomitir oo isku weeran waa dhul oomana ah oo ku yaala waqooyi bari Ethiopia koonfurta Eritrea iyo waqooyi galbeed Djibouti waa mid ka mid ah meelaha ugu kulul ugu qalalan uguna hooseeya adduunka waxaa lagu tilmaamaa meelaha ugu kulul dunida iyadoo heerkulkiisu celcelis ahaan gaarayo 40 degree centigrade ilaa 50 degree centigrade maalinkiiba waa dhul hoose oo qayb ka ah Great Rift Valley waxaa ka dhaca dhul guriro joogta iyo volkaanooyin sida volkaanada Erta oo ah volkaano dhuxul kulul ah lama degaankani waxa ku yaala tira harooyin ah oo ka samaysma biyo mareeno dhowr ah oo dooxooyin ah kuwaas oo ka mid yihiin harada Asale 116 mitir ka hooseysa heerka badda iyo harada Guelti Afera oo 80 mitir ka hooseysa heerka badda labaduba waxay leeyihiin crypt depressions ee Danakil depression Afera waxa ka dhaca volkaanooyin badan oo ay ku jiraan Marho Dabuhu Afdera iyo Erta buuraha Ethiopia waxay u qaysamaan laba qaybood Abyssinian Massif oo waqooyi galbeeda iyo Harar Massif oo koonfur bari ah Abyssinian Massif waa meelaha ugu sareeya buuraleyda Ethiopia waxaana ku yaala buurta ugu dheer Ethiopia oo lagu magacaabo Ras Dashen waxa uu dhererkeedu dhan yahay 4,550 mitir dhulka buuraleyda ah ee Ethiopia waxay ka mid yihiin meelaha ugu roobka badan Afrika waxaana ka soo bilaama oo ka soo farcama wabiyo waaweyn oo ay ka mid yihiin wabiga Niil Shabeelle Juba iyo Dawa badda cas waxay geeska Afrika ka martaa Eritrea Soomaaliya iyo Djibouti waxayna ku dhex taalaa 4 triangles oo leelo jeeda 3 geesoodka dhulkaasi ka kooban yahay oo ah dhul hooseeya low lying land oo ah meel aad u kulul oo aan la deganayn 4 triangles ama 4 depression waa dhul hoose oo ku yaala bariga Afrika gaar ahaan 3 geesoodka ay isugu yimaadaan
yimaadaan Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti. Goobtani waa mid ka mid ah meelaha ugu kulul uguna jilcisan geology ahaan. Waxa kale oo meeshani ay astaan u tahay inay ku kulmaan saddexda saxan ee tectoniga ah, saxanka African Plate, saxanka Carabta Arabian Plate iyo saxanka Soomaalida ee Somalian Plate. Waa mid ka mid ah meelaha ugu kulul adduunka, heerkulkuna aad buu sare ugu kacaa. Dhulkeedu waxaa ka muuqda burbur dhuleed, Rift Valleys, buuro dab ah, volcano iyo ilaha biyo kulul. Waxaa ka mid ah godka Danakil Depression oo aan horaan u soo sharaxay. Soomaaliya waa lama degaan ee ku yaala geeska Afrika. Waa meel aan badanaa roob ka diin, waxaana ku nool dad ku tiirsan xoolaha nool sida ariga, lo'da iyo geela. Webiyada Soomaaliya mara waa laba webi, waxayna ka maraan koonfurta waddanka. Webiyadani waxaa laga helaa biyo joogto ah marka laga reebo bilo yar oo ay qalalan yihiin, waana webiyada Jubba, Shabeelle, kuwaasoo ka yimaada buuraha Ethiopia. Soomaaliya ma jiro kala duwanaan xooggan oo cimilada ku salaysan. Xaalada kulul ayaa sanadka oo dhan jira oo ay la socdaan dabaylaha monsoon iyo roobab aan joogto ahayn. Celceliska heerkulka ugu sarreeya ee maalinlihii waxa uu u dhexeeyaa 28 ilaa 43 digrii oo u dhiganta 82 ilaa 109 Fahrenheit marka laga reebo meelaha sare ee xeebta bari, halkaasoo laga dareemi kara qabow. Soomaaliya waxaa ragaadiyay dagaalo sokeeye iyo dhibaatooyin siyaasadeed kuwaasoo sababa inay noqoto dal wadaninimada iyo dowladnimada ku guuldareysta. Ogaadeniya waxa uu ka tirsan yahay geeska Afrika. Waxa uu muddo qarni ku dhow ka socda dagaalo dadka deegaanku ku doonayeen inay kaga go'aan Ethiopia qaataan xornimo buuxda, balse weli ma aysan helin aqoonsi caalami ah. Haddana ma jiro kooxo hubaysan iyo kuwo qalin ku dirir ah oo u dhaqdhaqaaqa xornimada gobolkani. Isku soo duubo, geeska Afrika waa goob cajiib ah ay ku nool yihiin dadyo kala duwan, leh cimilo iyo juqraafi kala duwan. Waxaan ahay Muxyidiin Cabdi, waxaad igala socotaan juqraafi. Inta aynu dib ka kulmayno, nabadino.